boqorka dalka Malaysia oo xilkiisa ka tanaasulay gabar uu jecel yahay daraadeed waxa baraha bulshada qabsaday guurka boqorka dalka Malaysia Mohammed Al-Khamis iyo Oksana oo horey u guuleysatay boqorada quruxda ee dhulweynaha dalka Ruushka sanadii 2015. Oksana ayaa qaadatay diinta Islaamka kadib xiriir jacayl oo dhexmaray iyada iyo boqor Mohammed. 22 November ayay lamaanahan isku guursadeen magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka kadib xaflad siyaar sare loo soo agaasimay oo ka qabsoontay magaaladaas. xafladda arooska lamaanahan ayaa waxaa lagu saleeyay habdhaqanka labada dal ee ka soo kala jeedaan ee Ruushka iyo Malaysia. boqor Mohammed Al-Khamis ayaa soo xirtay dharka hidaha iyo dhaqanka ay caanka ku yihiin dadka Maleeshiyaanka halka ay Oksana soo xiratay taaj Raashiyaana. haddaba waa qof ma caruusadan sababsatay inuu xilkiisa ka tanaasulo Mohammed Al-Khamis. Oksana waxa ay jirtaa 25 sano oo kaliya waxa ayna 24 sano ka yartahay boqor Mohammed sida ay sheegayaan saxaafadda dalka Malaysia. Oksana ayaa qaadatay diinta Islaamka 6 bilood ka hor waxa ayna la baxday magac cusub oo ah Rihanna balse weligeed ma noqon doonto boqorada dalka Malaysia waayo sharciga dalkaas ayaa sheegaya in gabadh asal ahaan ka soo jeeda dalka Malaysia oo kaliya ay noqon karto boqorad. Oksana inta aysan ku guuleysan boqorada dalka Ruushka waxa ay ka qalin jabisay kulliyadda dhaqaalaha jaamacad ku taala gudaha dalkaas. arrinta xusida mudan ayaa ah Sultan Mohammed oo horey u lahaa xaas labaad inta uusan guursan Oksana balse aanay kala helin wax u bata. boqor Mohammed ayaa xilkan loo magacaabay December sanadii 2016 waxa uuna xilkan hayay 2 sano oo kaliya balse sida caadada ah boqor walba xilkan waxa uu hayaa 5 sano oo kaliya. boqornimada dalka Malaysia ayaa ka dhigan mid sharafeed oo kaliya iyadoo go'aamada oo dhan ay gacanta ugu jiraan xukuumadda oo hormuudka ka yahay ra'iisul wasaaraha. haddaba sidee u aragtaa go'aanka noocan oo kale ah jacaylkasi ma istaahilaa in jago boqortinimo loogu tanaasulo? fadlan fikirkaaga qaybta aaraada inoogu soo gudbi hana ilaabin inaad muuqaalkan laag saarto. mahadsanid.